ururka isku xidhka hablaha ee dugsiga sare ee Al-Aqsa ee Qoon Wadaag ayaa maanta soo qaban qaabiyay xaflad aad u ballaaran oo looga gol lahaa iyadoo ururka isku xidhka hablaha ee dugsiga sare ee Al-Aqsa ay waxqabadkooda koobaad ay dayactir aad u ballaaran ay ku sameeyeen stage-ka dugsigaasi haddaba dayactirka stage-kan cusub lagu sameeyay ayaa waxa xariga ka jaray Sheekh Xasan Daheeye Axmed ugu horeyntii waxa madashan ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Al-Aqsa Professor Ahmed Abdullahi Tallan isagoo ka sheekay taariikhda dheereed uu soo maray dugsiga geesta kalena waxa uu carabka ku dhuftay inuu dugsigan jiro nus qarni wuxuu ka rasal garoobay ama ka natiijadiisa uu yahay barnaamijkan isaga indisa badan oo inta badan dhex socday ardada gudaheeda wiilasha gaarkooda gabdhaha gaarkooda ardadii hore dugsiga ka qalinjabisay dhammaantood waxay ku fikirayeen si ay dugsigoodii ay wax ku barteen runtii wax ugu celin lahaayeen runtii waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo ijaabi ah oo maamulka dugsiga uu soo dhawaynayo sababtoo ah iskuulku wuxuu leeyahay rasiid badan ama asad badan buu leeyahay arday ka badan 7,500 arday ayaa ka qalinjabiyey oo wiilal iyo gabdho iskugu jira 13 difcadood oo wiilal iyo 11 difcadood oo gabdho ayaa dugsiga ka qalinjabiyey marka rasiidka intaas uu leeyahay arday inta laga qalinjabisay waxay ku kala fiirsan yihiin dhammaan qaybaha dunida waa dad maanta hawlkar ah oo runtii dugsigii ay ka baxeen saan jeclahay danaynaya inay wax u soo celiyaan jecel marka waxaan u baaqayaa dhammaantood wixii gudaha jooga iyo dibadda joogaba inay ku xisaabtamaan halkii aasaaskii waxbarashada inay runtii ay wax ku soo celiyaan ee Al-Aqsa gudoomiyaha ururka isku xidhka hablaha ee dugsiga sare Al-Aqsa ee Qoon Wadaag Faadimo Maxamuud Ibraahim oo halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay ka sheekaysay waxyaabii ku kalifay in ururkan aasaasan iyo waxyaabaha u qorshaysan inay qabtaan waydiinayeen waa maxay hadafkaadu socotay waa maxay dhibaatada muuqata ee ku garateen in meel loo baahayo urur la sameeyo oo wax ka qabto bulshada meelaha dalooleed u baahan in la ka qabto waa maxay su'aalahaas in badan bay ku soo noqnoqdeen iyadoo ka badnayn bil waxaan ururka aasaasnay ilaa hadda wax qabadkeygii koobaad ku soo bandhignay haddana waxaan oran lahaa in bilowgii aan ku bilownay anagu fikrad geedka hoostiisa geedka fanfoor ku fadhiisto hoostiisa way fikradaas ku bilaabantay intaan isku nimidnay anagoo 4 iyo 5 aan ka badnayn yaa nidhi hablaha maanta waxay u baahan yihiin urur u gaara urur dumar baa jira urur rag iyo dumar iskugu jira laakiin urur habliin muu jira markaasaan nidhi wax iskuulka dhexdiisa iskuulada dhexdiisa mooyaane urur heer goboleed oo gabdhihi muu jira markaasaan nidhi ma jiro urur heer goboleed oo gabdhihi markaas waxaan isnidhi urur heer goboleed oo gabdhaha qabta ay doorada ama waxbarashada ay gabdhuhu u baahan yihiin ictidaa'aadka gabdhaha lagu sameeyo iyo maxaa ku keenaya gabadha inay nafteeda disho oo kale inaan ka caawino oon xijaabadeenu ninkoo soo xumanayana ka caawino markaas maxaa gabadha inay disho ku keenaya waayo hadaf bayna nolosheedii u lahayn oo hadafkeeda ku dhahato wuxuu noqday inay guursatay iyo waxaas oo kale taasaa ku keenaysa inay disho marka dambe markay daahiminoodkeedii ay doonaysay ay wiilo laakiin halka waxaan u keenay ururkan u sameynay inaan gabadha hadaf ka weyn ama hadaf ka ballaaran oo hiigsato dariiq dheer ay eegato oo markaan halkaa gaadhaan sidaa samayn ay leedahay aan samayno ururkiina waan samaynay waxaan welcome leenahay gabadh walba oo doonaysa inay horumar gaadho waxaan leenahay gabadhi waxay gaari kartaa meel ragga ka dheer hadday fikirto oo sidooda u fikirto haddaan gabdhanahay maanta wax aad u weyn iyo aad u weyn baan qabsan karnaa haddaan walaal gacmaha isqabsano markaa maanta annaga ururka isku xidhka hablaha ee Qoon Wadaag inaan gacmaha isqabsano inaan gabadh walba oo u baahan gobolkeena awdal waqtiga xaaliga inaan ka caawino waxbarashay noqotay nolosheeda khaaskay noqotay xitaa cilmu nafsaday noqoto waan siinaynaa aan way iman karaan ururkan ku soo biirinaynaa wax tiyaajaadkooda dhammaan qaban waxbarasho ahaatee nolosha kale ahaata xitaa waxaan sameynaynaa habluhu markay nagu soo biiraan inay volunteer ahaan ugu dhigaan ardayda formalka oo waqtigaasina hadaf u samayso hooyo Basra Jirda Shiil oo madashan goobjoog ka ahayd isla markaana hadallo waaniyo ducaa u soo jeedisay ardayda dugsiga Al-Aqsa iyo waliba ardayda ku bahowday ururka Qoon Wadaag ayaa waxay dhamaantood baamaan u soo jeedisay laakiin boqolkiiba 30 hablaha dhibaato weyn ayaa haysata cilmi la'aan ha noqoto shaqo la'aan ha noqoto ehel la'aan ha noqoto hablaha guryaha ka shaqeeya dhulkan aad baa loogu gumaysaa aad bay u dhibaataysan yihiin xuquuq ma haystaan waxaan idinku waaninayaa hablihiina yaryar ee isku dayay inaad idinku urur samaysaan hablaha isku xidha inaydaan ku joogin keliya hablaha wax barta ee dugsiyada wax ka barta
aad ku dadaashaan inaad marka ugu horeysa caawisaan hablaha guryaha ka shaqeeya. Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil oo madashan hadallo wax ku ool ah ka soo jeediyay ayaa waxa uu sheegay ay ka xishoonayaan iyo waxa ka cabsoonayaan kuwa ay ka horeeyay عندي كنت لجل فايدة وقتها يلا وما بنانبا منا وما بنانين لكن قبل موي تهديد لقاها يوين المغلال الله النعجة هلا ولا النعم وحلا يالي وحلا قاتل منا ما هكذا شرفتنا هدينا قبلها قارهاني اساسا ولمية قارها اساسا قبلها ولمية وحوي أنا الرجال الرجال بيال والدكين حنون باهي حنون باهلية إذا نبيه إنك القرنين Sheekh Xasan Deeye Axmed oo munaasabadan hadallo dhinac walba taabanaya ka soo jeediyay ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay taariibka dhalinyaradu taariibayaan wadamada shisheeye $10 waxaasaynu ku dhisaynaa waddankeena مشاريع بدن بعض اللي نسويها ألقى واحد كوا أمانة تين أيبتي حبارات كقيب قشان ولا ألقى واحد قال الله مع الجامعة ده اللي كسر ري عن الجامعة ده اللي كسر ري هذه بدون ما تنتهي واحد لو بهاي المشاريع العين كاسة وين لو تعداد مالين أما الله بعيش كده يسبريجا أوضو الله وريه كل قف قدينا النهاي $2,000 بين نقول سامالت يا لبدي معلومات يا ريرما gudoomiye ku-xigeenka cusub ururka qaranka Naawe gobolka Nawdar Rawda Maxamed Cige oo munaasabadan aadka u qaadi lahayd laga soo jeedisay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday isku abaabulay ee iyagu fikirkooda ku keenay in ay sameeyaan ururkan aqoon wadaag aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa run ahaantii fikir aad iyo aad u wanaagsan ayay gabdhahaasi keeneen waxay ku fikirayaan sidii ay u caawin lahaayeen gabdhaha dhibaataysan aad ayaan ugu mahadcelinayaa waayo annagu ururka haweenka qaranka ayaan nahay danta aan ka shaqeyno ayaaba ah haween si kastaba ahaatee ururka isku xidhka hablaha ee dugsiga sare Al-Aqsa ee aqoon wadaag ayaa waxa uu xadhka xidheen sidii haweenka ku tabaalaysan boorama wax ugu qaban lahaayeen ha noqoto dhinacyada waxbarashada caafimaadka balse waxa xusid mudan in ururkan aqoon wadaag uu jiray muddo gaadhaysa bil balse aad arkayso wax qabadka muugale ay durtaba ku tallaabsadeen Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare telefishinka Rayo dugsiga sare Al-Aqsa